waddanka South Africa ayaa waxa mar kale dib uga bilaabmay dilka iyo bililqaysiga loo geysanayo hantida dadka shisheeyaha iyadoo marka foodadu inta badan ay ka taagan tahay magaalada caasimadda Pretoria iyo agagaarkeeda dhibaatadan ayaa waxa la sheegay in markan ay ka dhalatay markii dawladda ANC ee waddanka South Africa ay bedeshay duqii magaaladaasi Pretoria caasimadda arintaasi oo ay ka gadoodeen oo ay ka boodeen dadka degan magaaladaasi badankoodu si kastaba ha ahaatee boobkan ayaan markan waxaanu ku koobnayn oo kaliya dadka ajnabiga hase ahaatee dhibaatada xooggeedu waxa lagu soo waramayaa inay ku dhacday bulshada halkaasi ku dhaqan oo dhan si kastaba ha ahaatee warbixinta waxa inoo haya wariyahayaga Caydaruus Cabdi Xasan labaad xaaladda xasilooni ee magaalada caasimadda ah ee dalkan Koonfur Afrika ee Pretoria taa oo ay ka jirto jahawareer xoogan kadib markii xisbiga talada hayo ee ANC ay isku dayeen inay bedelaan duqa magaaladaasi oo la doonayo in lagu bedelo haweeney ka soo jeedo gobolka KwaZulu-Natal oo ka soo jeedo madaxweynaha dalkan Koonfur Afrika dad ka careysan arintaasi ayaa waxay bilaabeen inay gubaan goobo ganacsi iyo gawaari mareysay caasimadda dalkani ee Pretoria xilli walba markii ay jiraan isbeddelada siyaasadeed dalkan Koonfur Afrika ayaa waxaa jira dhibaatooyin soo gaaro dadka ajaanibta ee ganacsiga ku leh dalkani Koonfur Afrika goboladiisa kala duwan waxaana dhibaatooyinka ugu fara badan ay soo gaareen dadka Soomaalida ah deegaanada laga soo sheegayo dhibaatada ayaa waxaa ka mid ah Adrashfield iyo Mamelodi oo hoos yimaada caasimadda dalkan Koonfur Afrika ee Pretoria waxaana jira goobo fara badan oo ilaa hadda ay gaari waayeen ciidamada booliiska si loo badbaadiyo nafta dadka ku nool halkaasi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee dalkan Koonfur Afrika EFF Julius Malema ayaa sidoo kale eedeymo u jeediyay madaxweynaha dalka Koonfur Afrika iyo ciidamada booliiska oo sheegay inay ka hortagi waayeen dadka dhibaatada wada oo ay mar walba ku mashquulsan yihiin waxyaabo aan loo taagneyn muuqaaladan aan ka soo xiganay TV-yada dalkan Koonfur Afrika ayaa intooda badan waxay maanta ka hadlayaan dhibaatada ka taagan caasimadda dalkan Koonfur Afrika ee Pretoria. So we need the government to give us actually reinforcement that we can take them out at least, to save their lives. Even the shops are looted, everything is gone. So what we need now is their lives. That's what we need the government to help us. What did they say? No, I didn't. No, I'm not going to the police station to close everything. Didn't pass you can see there. Yeah. Okay. We'll call that for police station. It's nothing. There's no police. Caydaruus Cabdi Xasan TV-ga caalamiga Universal Johannesburg Koonfur Afrika mahadsan yahay wariyahayaga Caydaruus Cabdi Xasan oo warbixintaasi nooga soo diray waddanka South Africa.